69. Okay, 669 ayuu marayay. Okay, meequu ka heli karay? Intaas ayuu heli karay. Maantana meequu marayaa? Bal fiiri, 15 senti meequu gaaray? 20 senti. Okay, 20 senti lagu dhuftay 0.2 waa boqolkii dollar qofkii ku tuuray. waa kan lacagtan ayaa haystaa. lacagtan ayaa haystaa. ma fahantay? waa 2000. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabay meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo warbixin cusub. waxaan isku dayi doonaa insha allah maalin walba inaan soo gelino waxyaabihii ugu dambeeyey haddii ahaaleed newsyadii ama kala horeyntii konisyada sida suuqa uu yahay, dhacdooyinka ugu dambeeyey. asxaabay sidaad ka warqabtaanbo asxaabay sad wada jeedaan konisyadu wax yar ayay dhaqaaqeen. dimension maxaa la yirahdaa icheck konkan maxaa la yirahdaa wuxuu jooga 0.4 maantuna wuxuu gaaray 0.5 rankiga uu ku jiro 284 market capkiisa waa 122.84 milyan. haddii aan fiirino kala horeynta konisyada asxaabay sida caadada ahaydba waxaa hogaaminayso konka konisyada dahabka digitalka bitcoin. sida caadadeed maanta waxay hoos soo dhacday 82.470 ayay maraysaa labadii bitcoin ah. markaan fiirino maalin ahaantii waxay hoos u dhacday 0.7%. haddii laakiin week ahaan la fiiriyo kor u kacay samaynaysaa. haddii la fiiriyo laakiin bil ahaan hoos u dhaca waa 15.1 boqolkiiba. sanadle haddaan fiirine sare u kac aad u ballaaran waa boqolkiiba waxaa la yirahdaa 20.5 ayay sare u kac samaynaysaa. ethereum aan ku xigo walow newsyo badan ay kasoo baxaan dhanka ethereum-ka tether, inkastoo wadamada qaar laga xanibay sida wadamada Yurubta kale waa laga xanibay, Yurub kale waa laga xanibay. waxaa kaalinta afraad ku jira XRP. waxaan filayaa asxaab badan konkooda waaye maxaa la yirahdaa icheck XRP community badan ayuu leeyahay run ahaantii. waxaa kaloo ku xiga BNB. run ahaantii konkan macnaha isbedbedelkiisa badan. hadda wuxuu marayaa 629.79 senti oo dollar ayuu marayaa. saacadii lasoo dhaafay 0.2 ayuu hoos u dhacay. maalin haddii la fiiriyo 0.4 ayuu kor u kacay. weekly marka la fiiriyo asaga 15.73 boqolkiiba ayuu kor u kacay. waa inuu jeedaa asxaabay Solana asigna community badan ayuu leeyahay asxaabay. waxaa la yiraahdaa qiimihiisa hadda waa 123.56 ayuu marayaa. marka la fiiriyo saacad ahaan asaga waxba ismaysan iska bedelin, laakiin maalin ahaan markii loo fiiriyo 3.1 ayaa hoos u dhacay. weekly markii loo fiiriyo laakiin boqolkiiba 1 ayuu kor u kacay. maxaa la yirahdaa markii bil loo fiiriyana boqolkiiba 35.9 ayuu hoos aaday. marka kaliis mayno sida wada u jeedaan wixii oo dhan hoos ay wada u jeedaan. suuqii maxaa la yirahdaa madaxweyne Trump la doortay brocrypto ahay nin crypto taageersan ahay sidii la filayay muusan naqanin. waxaan rajaynaynaa insha Allah suuqu inuu isbedelo asxaabay. ka USDT kan stablecoins waaye. Cardano ayaa noogu xiga. Cardano newsyo badan ay kasoo baxay labada wiig la soo dhaafay, laakiin hadda waxaad moodaa xogaar inuu istaagay boqolkiiba 7 ayuu marayaa. wuxuu marayaa 70 sent ayuu marayaa xabadiisaba. laakiin markasta waxaa laga filan karaa macnaha inuu kor aado konkan. marka maxaa la yirahdaa icheck laakiin markii loo fiiriyo bishii ama isbuucii ama maalintii hoos ayuu wada dhacay. maxaa la yirahdaa haddii aan soo qaadana saacadii boqolkiiba 2 ayuu hoos u dhacay. maalintii markaan soo qaadana boqolkiiba 2.7 ayuu hoos u dhacay. halka isbuuclahana 1.7 hoos u dhacay. bilahana 10.2 ayuu hoos u dhacay. laakiin markii loo fiiriyo sanadle
waxaad moodaa yani hor u kac yar inuu sameeyo 2.6 boqolkiiba kor inuu u kacay. asxaabay maxaa la yirahdaa crypto lagu soo kala horeeyay, marka waxaan rajeynaynaa insha Allah bulsho badan oo Soomaaliya oo baro crypto in la helo insha Allah waqti dhow. maxaa la yirahdaa dad waxaa jira koonkan hayaan muddo ku dhow sanad 2 sano 3 sano hayaan, waxaad moodaa faa'iido badan inuu u sameeyay. maxaa la yirahdaa ii sheeg, laakiin Solana xoogaa yar hoos u dhac ayuu ku jiraa, laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah hadda saadaalin siday ku socdo Solana oo kale, waxaan rajeynayaa insha Allah 600 ilaa 300 inta u dhaxayso ayay u badan. qaar badan oo sheegay way jiraan ilaa 800,000 gaarsiinaya, laakiin sidoo badan waa 600 ilaa 300 ay u dhaxeeya. haddii aan hoos ugu sii socono asxaabay, Dogecoin ku xiga. Dogecoin beryahan waxaa moodaa inuu aad u dhiig baxayan moodaa, cirbadii dhiig joojinta u baahan yahay. aawi ninkii soo hadla jiray Elon Musk lama hayo beryahan, marka wuxuu marayaa 16 senti xabadiisa. maxaa la yirahdaa ii sheeg, weeklihiisa ayaad moodaa wax yar kor inuu soo kacay, laakiin sidiis kale maalinta hoos u dhacay boqolkiiba hal 3% ayuu hoos u dhacay maalintiisa weekly marka loo fiiriyo, laakiin 5.7 ayuu kor u kacay, halka bilaha marka loo fiiriyo laakiin 38.4 ayuu hoos aaday marka loo fiiriyo, laakiin sanadleh 7.8 ayuu kor u kacsan yahay koonkan. taabay saad ku warqabtaan wixii dhan hadda waa wada jaban yihiin, suuqa hoos u wada jira, waa laga wada faa'iideysan karaa. waxaan kula talin lahaa cid waliba danaynaysa suuqan inay baaritaan dheer ay sameyso. maxaa la yirahdaa ii sheeg, newskan ma aha ila talin dhaqaale. maxaa la yirahdaa ii sheeg, qof waliba waxaan rajeynayaa inuu sameeyo maxaa la yirahdaa news baaritaankiisa asiga u gaarka ah. do your own research. maxaa la yirahdaa ii sheeg, suuqa hoos ayuu joogaa. waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala qof alla qofkii danaynaysa inuu baaritaan dheer oo ku sameeyo koonka oo dooran lahaa. maxaa la yirahdaa ii sheeg, white paperkiisa si fiican uu aqriyo. saxaabay newska dan sii wadno, halkan waxaa fadhiya Jaylinka kaalinta 13aad ayuu fadhiyaa, waana 13.74. alla ilahay, meeshan Janis ayaa yaala. dhawaanahan halkan ayuu kuna naqanayay, waxaad moodaa wax yar inuu soo kabanayo. ha ka reebin, waxaa sii daba jooga Stellar, waxaa sii daba jooga Adera, waxaa sii daba jooga Avalanche. Avalanche 10.70 senti waxaa la kara waa fursad. marka maxaa la yirahdaa suuqa uu soo noqonaa asxaabay. maxaa la yirahdaa baaritaan dheer hala sameeyo. Shiba Inu ku sii xigo, waxaa ku sii xiga asxaabay Sui asxaabay. maxaa la yirahdaa waa coin macna badan ku fadhiya. waxaa la rajeynayaa mustaqbalka inuu la tartamo Solana, inuu la tartamo. hadda beeciisa waa 2.252. maxaa la yirahdaa ii sheeg, markii loo fiiriyo sanadla asigana waxaad moodaa 40% inuu kor u soo kacay la moodaa asxaabay. maxaa la yirahdaa ii sheeg, koonkan waxaa la rajeynayaa isbuuc ama 2 isbuuc kadib in lagu soo kordhin doono coins badan, in unlock lagu sameyn doono. taas waxaa dhici kara in qiimahan ay isbedesho oo yara hoos u dhacdo. waxaa fiicnaan qof walba baaritaan inuu ku sameeyo. markii 31 Mars ayaa lagu balansan yahay in macnaha maxaa la yirahdaa Sui coins badan maxaa la yirahdaa tiro badan lagu soo fasaxo. marka halkaas ayaa la dhihi karaa macnaha qofka uu ka qaadan karaa, iyadoo qof kasta ay tahay inuu baaritaankiisa khaaska ah uu sameeyo. marka asxaabay, kaalinta 20aad waxaa soo gashay Mantara, 21aad Bitcoin Cash, 22aad Litecoin. maxaa la yirahdaa asxaabay, waa kaasaas ayay u sii socdaan. aan sii fiirino maxaa la yirahdaa ii sheeg, Aptos waa 5.75 ayaa maraysaa qiimaheeda. dhiigbax ayaa ku socda, waa laga faa'iideysan karaa. ha ka reebin, halkaa waxaad si daba jooga maxaa la yirahdaa New Protocol 2.5 ayuu marayaa. wiilka hor wuxuu marayaa $3 iyo wax la jiro ayuu marayay. bilka hor wuxuu marayay $5 wax la jira. marka asxaabay yala moogaane, baaritaankaagana sameey. halkan waxaa sii fadhiya internet computer. koonka waxaa lagu yaqaanaa inuu gaaray qiimo gaaraya 400 iyo something, haddana waxaa maraya oo arkaysaan asxaabay. marka waxaa la rajeynayaa wax badan, isbedelo badan inuu sameeyo. marka do your own research, markastaba sameey baaritaankaaga adiga u gaarka ah. asxaabay, halkan waxaa sii fadhiyo Render oo asigan coin weyn €3 jooga. maxaa la yirahdaa Algorand waxuu jooga asigana 18 senti.
runtii wuxuu kamid yahay coinska laga filayo inay sameeyaan 1x 2x 3x ayuu kamid yahay. Halkan waxaa sii fadhiya asagana Jupiter alaylahe maxaa la yirahdaa waa mashruucan asigana maxaa la yirahdaa ii sheeg waxaa laga filayaa 1x 2x 3x inuu sameeyo. haddii aan halkale aan soo qaadan asagana waa movementiga asigana mashruucyo badan waxaa loo xareeyay xataa ETF loo xareeyay maxaa la yirahdaa ii sheeg hadduu wuxuu marayaa 0.4 waxaa la rajeynayaa asigana waan cusub yahay waxaa la rajeynayaa asigana maxaa la yirahdaa ii sheeg 1x 2x 3x 4x inuu sameyn karaa la rajeynayaa. sida waxaa dad badan waxay dhahaan qiimihii suu markay soo bixaysa camal uu marayay ayuu movementiga hadda uu marayaa. halkan waxaa sii fadhido say 19 senti ay maraysaa saxaabay. mashruucyadu waa iska badan yihiin saxaabay. halka hadda sii fiirin asagna maxaa la yirahdaa waxa ugu horeyso oo indhaheena qabanayno macnaha maxaa la yirahdaa ii sheeg waxay maray waa market capka wuxuu marayaa 2.7 trillion ayuu marayaa marka 0.75% ayuu hoos u dhacay. marka maxaa la yirahdaa ii sheeg dominance BTC na waxay maraysaa 60.8 boqolkiiba. marka saxaabay maxaa la yirahdaa ii sheeg fee and gridkan wuxuu marayaa 25 waxaa moodaa wax yar kor inoo soo kacay cabsida yar ee yara dhamaanayso inkastoo lagu jiro saxaabay. maxaa la yirahdaa wili cabsida ay jirto altcoin season-kan wuxuu marayaa 20 saxaabay. suuq waa intaas isha waxay kusii qabanaysaa koomka la yiraahdo Mubarak waa meme coins maxaa la yirahdaa isha wuu cusub yahay maalin labo ayuu jiraa. marka saxaabay hadda hoos ayuu u socdaa 15 sent ayuu marayaa. haddii aan kusii dhufano maxaa la yirahdaa ii sheeg waa kana wuxuu soo baxay asigadan 13 Maarso soo baxay wuxuu ku soo baxay 0.003. okay wax yar aan sameynaa saxaabay. balkoonkan aan fiirino waa meme coins maxaa la yirahdaa BNB uu ku dhisan yahay. maxaa la yirahdaa ii sheeg wuxuu soo baxay sida aad arkaysan 13 Maars. qofkii halkan ka galay qiimaha wuxuu marayay 0.004 ayuu marayay. okay let's say yaan ka badanin qofkii 100 euro bis ku tuuray aba $100 ku tuuray wuxuu heli karay 0.00 meeqo marayay 0.69. okay 669 ayuu marayay. okay meeqo ka heli karay intaas ayuu heli karay. maantana meeqo maraya bal fiire 15 senti meeqo gaaray 20 senti. okay 20 senti ku dhufo lagu dhuftay 0.2 waa boqolkii dollar qofkii ku tuuray. waa kan lacagtan ayaa haystaa ma fahantay waa 2000 maxaa la yirahdaa 989.5 intaas ayaa heli kartay .5 ayaa heli kartay waa $100 ku tuuray. meme coins kastana laguma tuuri karo laakiin kan waa laga soo hadlay. maxaa la yirahdaa ii sheeg waa kaya asxaabay asiga hadartan maxaa la yirahdaa ii sheeg trending ugu fiican ku jiro labada maalin la soo dhaaf asiga haysto. marka halkan kale maxaan kaloo ka aragnaa marka waa kaya asxaabay. okay BTC waa kana wax yar kor u kac yar sameynaysaa. hadda aan duwan waxa waaye maxaa la yirahdaa 2,000 ay maraysaa iyo 300. marka maxaa la yirahdaa haddii aan ugu sii gudubno newsyada waxa ugu dambeeyay asxaabay waxaa la soo warinayaa bangiga federaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan Federal Reserve waxaa la filayaa inay ka doodaan xaaladda dhaqaale ee dalka iyo suurtagalnimada inay hoos u dhigaan heerka dulsaarka lacagta. waxaana la saadaalinayaa hoos u dhaca dulsaarka xilliga dayrta gaar ahaan bisha December iyo September ayaa la saadaalinayaa. runtii warkan waa war dhinaca marka anigana ma quseeyo laakiin marka haddii ay dhacdo in hadda la ogolaado wuxuu saameyn xoog leh ku yeelan doonaa dhinaca cryptocurrency ayuu waayo dadka deen ayay soo qaadanayaan suuqeen la soo wada aadayaan halkaasna waa suuq kor ayuu aadayaa. okay newskan xiga coin cusub oo la yiraahdo Mubarak ayaa si weyn u kacay waa kii hadda aan soo arkaynay iyadoo qiimaha oo kor u kacay 70% maanta.
una gaaray 20 senti. Haddana wuxuu marayaa aan duubano videogan 17 senti. suuqa guud ee coinka laba maalmood gudahood wuxuu gaaray 200 oo milyan, waxaana hadda lagu kala iibsan karaa Bitget iyo Binance. Okay, waa kana mujidin asxaabay, coinka waa kana laba ninkaaga soo qaaday sawir, marna waa kana, markalna waa kana. Marka maxaa la yiraahdaa ii sheeg. Okay, newskan xiga hadda usii gudubna asxaabay. waxaa la soo warinaya idina 80 shirkadood oo dadweyne ah ayaa hadda ku darsadeen Bitcoin hantidooda, taasoo muujinaysa kalsoonida iyo rabitaanka sii kordhaya ee suuqa cryptocurrency. waxaana loo arkaa tani inay tahay calaamad muujinaysa Bitcoin inuu noqday hanti muhiim ah oo maaliyadeed. waa kana. Okay, shirkadaha marka waa kuwan asxaabay, waa kana halkan ayay ku yaalaan. marka waa shirkado dadweyne ay leeyihiin. dad badan ayaa maanta ka hadlay Ethereum, dhinacyo badan ayaa looga hadlay. dhinacan haddaan ka soo qaadano, qurada waxay Ethereum u dhigaan horumarka sida Amazon iyo Microsoft, iyadoo la tilmaamayo inuu mustaqbalkiisu uu noqon karo mid sareeya. inkasta oo hoos u dhac ku yimid, haddana waxa uu leeyahay xiiso maaliyadeed oo sii kordhaya. marka waxaa lala barbar dhigayaa macnaha horumarka Amazon iyo Microsoft inuu saameyn karo. marka maxaa la yiraahdaa ii sheeg, waa arki doonaa insha Allah mustaqbalka sida noqoto. Okay, qoro lagu magacaabo Slow Mist oo ayada macnaha maxaa la yiraahdaa ku takhasustay ammaanka waxyaabahaas oo dhan, ayaa waxay shaaca ka qaaday cilad weyn oo amniga ah ee ku saabsan Mimikon arbushaad ku sameeya smart contractiga iyo lacagaha soo degaysa. macnaha Mimikons ayaa la sameeyey. marka maxaa la yiraahdaa ii sheeg, Mimikonskaas loo soo dhex maray. marka waxaa la isku dayay in arbushaad lagu sameeyo, marka laakiin waa laga hortagay nasiib wanaag. Okay, newskana ku xigana haddii aan sii fiirino, waxyaabihii ugu weynaa maanta ka mid ah dowladaha adduunka waxay kordhinayaan xeerarka Bitcoin ATMska. waxaa la lahaa meelaha lacagaha lagala baxo. maxaa la yiraahdaa ii sheeg, bangiyada ay leeyihiin. marka maxaa la yiraahdaa ii sheeg, xeerar ayaa laga soo saaraya. marka Bitcoin ayaa macnaha xeerar laga soo saaraya, iyagoo ka walwalsan khiyaanada iyo lacag dhaqida. macnaha maxaa la yiraahdaa sida ayaga ay sheegayaan, dowladaha waxay leeyihiin lacago badan oo xeerar ayay leeyihiin. marka laakiin dad kalena waxay leeyihiin macnaha maxaa la yiraahdaa may sidaa maaha, arrinta lacagahooda ayaa hoos uga sii dhacaysa. marka dowladahaas waxaa kamid ah marka New Zealand, Australia, UK iyo USA. marka ayaa dowladahaas ayaa ugu saameyn adag. marka okay, newskan kale asxaabay ku xiga, waxyaabihii ugu sareeyay toddobaadkan waxaa soo saaray CoinMarketCap. waxqabadkii ugu sareeyay toddobaadkan waxaa soo saaray CoinMarketCap. waa kana marka sawirkiisa sidaad aragtaan, waa waxaan yiraahdaa ii sheeg bounce token la yiraahdo. pricekiisa 35.52 wuxuu kor u kacay boqolkiiba 106.61 ayuu sare u kacay, halka market capkiisana uu gaaray 234.58 milyan. Binary X ayaa ku xiga 1.80 ayuu marayaa, marka wuxuuna kor u kacay 80.5, halka market capkiisana kaalinta oo ugu jiro konsida hadda maanta jirana waa 84. market capkiisana wuxuu gaaray 683. marka maxaa la yiraahdaa Redstone ku xiga 182 ku jira 203 milyan ayuu gaaray. Solana ku xiga 161 ayuu ku jira. kala horeynta qiimaha marka loo dhigo konsida ay kala leeyihiin, market capkiisana wuxuu marayaa 240. Fartcoin ku xiga 0.3 asigana wuxuu kor u kacay 38 boqolkiiba. Okay, 139 ayuu ku jira. marka top 100 ka daan fiirino asxaabay, waxaa ku jira Binary X oo 84 ku jira, asigana wuxuu kor u kacay 80 boqolkiiba kor u kacay. waxaa kaloo ku jira asigana aan ka arkaynaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg Bankswap
asigana 92 ku jira, wuxuuna kor u kacay 35 boqolkiiba. Okay, kaalinta 14aad waa kana waxaa ku jira Toncoin, asigana kor u kacay boqolkiiba 29. Okay, 95 asigana waxaa soo galay Helium, asigana wuxuu kor u kacay boqolkiiba 23. marka asxaab isbedel badan ayaa jiro walow sidii la rabay aysan ahayn beryahan. Okay, nin lagu magacaabo Francois Follet de Gaulle oo ah gudoomiyaha bangiga Faransa wuxuu ka digay taageerada Trump ee crypto ay keeni karto xasilooni darro dhaqaale caalami ah. macnaha waxay leedahay, wuxuu leeyahay ninkan macnaha bangiga ayuu maxaa ninkan waaye odayga ah, macnaha maxaa la yiraahdaa bangiga Faransa ayuu madax ka yahay. marka wuxuu leeyahay taageerada Trump uu taageerayo cryptocurrency waxay keeni kartaa in dhaqaalaha adduunka inuu hoos u dhaco. marka waa aragtidiisa kuley. marka maxaa la yiraahdaa ishak waa intaas. AU-na waxay doorbidaysaa inay xakameyn adag halka Mareykanka AU-dan way adkeynaysaa, Mareykankana wuu sii fududeynayaa. Okay, newskeena xiga marka. Okay, Standard Chartered waxaa la yiraahdaa banki oo UK saldhigiisa kuley macnaha wadamo qaarado badan ku yaala ayaa hoos u dhigay saadaasha qiimaha Ethereum. macnaha asigana wuxuu leeyahay Ethereum sidii laga filinayay maaha. Okay, muxuu ku qiimeeyay marka qiimaha la filayo 2025 bangiga Standard Chartered wuxuu hoos u dhigay saadaasha Ethereum boqolkiiba 60. haye wuxuuna hadda filayaa inuu gaaro 4,000. ka hor waxaa la saadaalinayay maxaa la yiraahdaa ishak inuu gaaro 10,000. sababaha marka wuxuu leeyahay tartanka sii kordhaya ee layer 2 networks iyo hoos u dhaca dakhliga Ethereum. maxaa kale hoos u dhaca weyn Ethereum wuxuu lumiyay boqolkiiba 42 qiimihiisa tan iyo January 2025. 52 boqolkiiba laga soo bilaabo December 2024. waana wax aad u weyn. Okay, rajada mustaqbalka asigana rajada mustaqbalka maxay ka dhaheen sida hantida dhabta ah wuxuu caawin karaa Ethereum mustaqbalka. Okay, laakiin ma xalinaya dhibaatada hadda. Ethereum wuxuu wajahayaa tartan adag iyo dakhli yaraansho, taasoo keeni karta inuu sii wiiqmo haddii isbedel weyn la sameyn waayo. Okay, warcad waaye. asxaabay intaas ayaa ugu weynaay maanta. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. aad ay u mahadsantahay haddii halkaan naga soo gaartay. waxaan ka codsanaynaa subscribe, like. waxaan isku dayi doonaa newsada ugu dambeeyay inaan halkan kusoo gudbino. aad baad u mahadsantahay daawashadaada, waan kaaga mahadcelinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.